dhawaataan barnaamijkeenii xulashada caweyska heesaha oo aad maalin walba oo jimco aad kala socotaan radio SMS somalimedstation.com jiray way egmadiisu indoo jeclaysteen way adimadan ku socon lahaa dhegeystayaal waxaan barnaamijkeenan xulashada caweyska toddobaadkan aan dahfuro ka dhigayaa fanaanka caanka ee saalax qaasim naaji aniguba baryaha qaab waa tan badiyo webi uuraha kalali jiray aniguba baryaha qaab bulshada iyo sahankaba aniguba baryaha qaab bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray aniguba baryaha qaab watan badiyo webi uuraha kalali jiray aniguba baryaha qaab bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray wasabixiso dixise cashaqan biyoon bedankayga kaba jaray aniga ugu teele wasabixiso dixise cashaqan biyoon bedankayga kaba jaray aniga ugu teele كانوا بير عدادي كانوا بير عدادي ودايو نفتاي يداي قبايلي يداي قبايلي كانوا بير عدادي كانوا بير عدادي وهدايو نفتاي يداي قبايلي يداي قبايلي بريدة نواسلي روح بكانك كوغن عي أضربان كاتغي صمكم بناني بريدة نواسدي روح بكانك كوغن عي أضربان كاتغي صمكم بناني الله برشو وعنا الله برشو وعنا بإيواء دنيوي ما حد لبا بقليسا حولها قبادنا barnaamijkeena ku soo qaadanaya fanaanka nuur dalacay hees uu qaado صوت ما عيرنا
heesta xigtay toddobaadkan barnaamijkeenan xulashada caweyska heesaha waxaan ku soo qaadanayaa sidoo kale fanaanada dhigaya barnaamijkana xulashada caweyska heesaha toddobaadkan dhagaystayaal fanaanka Axmed Biif heestii barkin waa codkii iyo mirihii Axmed Biif laxankii Allah u naxariistay Axmed Nuur Jaangow taniya kulinta dambe waa anigoo Maxamed Axmed oo idinku dhaafaya sida iyo nabaadiino nooli kulantee iyo amaana Allah بنتي عاشقها وبقي ودنها يوم بركي قدها تلي بالرضا شعلا ذي يبو بنتي عاشقها وبقي ودنها يوم بركيga gaatalay wahida kalgacalkiyo oholyoga aan qabo naftuku basaasto bogsawaayawga